السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا waxaweye waa cashirkeenii lesson 1 cashirkii koowaad party 4 qaybtii afraad conversation sheekaysi waxaweye waxaan ku jirnaa buuggii ahaa yani real life English marka aan la socono insha Allah taala waxay noogu dambeeyay Teresa iyo Salfia wada hadlaya marka cashirku wuu socdaa marka Salfia ayaa waxay tiri what will you do maxaa qaban doontaa what will you do maxaa qaban doontaa at your new job shaqadaada cusub marka what will you do maxaad samayn doontaa at new job shaqadaada cusub marka at your new job shaqadaada cusub marka Teresa waxay tiri a lot of things waa maxay waxyaabo badan a lot of wax badan wey a lot of things waxyaabo badan baan qaban doonaa I will find waxaan markaa yani u raadin doonaa new employees shaqaale cusub for the hotelka markaa I will find waxa loo isticmaalaa helid ama raadin I will find waxaan markaa u raadin doonaa new employees shaqaale cusub employees waa shaqaale for the hotelka markaa Selfie waxay leedahay is that difficult taas ma mid adag baa markaa is that difficult taas ma adag tahay is that difficulty taas miyay adag tahay Teresa waxay tiri interviews waa maxay yani wareysiyada can take waxay qaadan karaan a lot of time waqti badan markaa interviews wareysiyadu can take waxay qaadan karaan a lot of time waqti badan markaa it's not always easy it's not maaha always mar walba easy wax fudud to find inaa hesho the best person qofka ugu wanaagsan for the job ee shaqada markaa it's not maaha always mar walba easy yani wax fudud to find inaa hesho the best person qofka ugu fiican ama ugu wanaagsan for the job markaa qofka shaqada ku wanaagsanaan lahaa qofka shaqadan ku wanaagsanaa inaa hesho yani wax fudud ma aha leedahay marka it's not always easy mar walba ma fududa to find inaa hesho the best person qofka ugu wanaagsan for the job ee shaqada markaa soo saa awgeed I hire waxaan shaqaalaysiinayaa workers shaqaalo then kadibna I train waxaan tababarayaa the new workers shaqaalaha cusub markaa maxay tiri soo saa awgeed I hire waxaan shaqaalaysiinayaa workers shaqaalo markaa then kadibna I train waxaan tababarayaa the new workers shaqaalaha cusub markaa after all that intaas dhan kadib I want waxaan doonayaa the workers shaqaalaha markaa oo yani shaqaale cusba waxaan ka doonayaa to stay haddana ay sii joogaan marka I want waxaan ka doonayaa the workers shaqaalaha to stay inay joogaan I will do waxaan u qaban doonaa other things waxyaabo kale to sidoo kale I will help waxaan ka caawin doonaa workers shaqaalaha with their benefits waxyaabaha markaa yani dheeraadka u ah faa'iidooyinka yani faa'iidooyinkooda benefits waxaa loo yaqaanaa waa faa'iidooyin tusaale ahaan salary waa mushaar wax ka baxsan wey markaa extra money wey lacag dheeraada marka I will help waxaan ka caawin doonaa workers shaqaalaha with their benefits markaa waxyaaba markaa yani benefit u ah markaa faa'iidooyinkooda markaa waxyaaba marka waxaa jira extra waxyaaba dheeraad oo faa'iido ah marka benefitka waxaa ka mid ah ay bixiyaan kuwani waa like insurance inay yani qofkan ka bixiyaan caymis markaa and retirement iyo inay siiyaan qofku howlgab noqdo lacag markaa yani retirement oo howlgaba markaa waxaan ka caawin doonaa bay leedahay workers shaqaalaha with their benefits waxyaaba markaa faa'iidooyinkooda ah like sida insurance caymiska and retirement iyo markaa maxay yani howlgab yani sida markaa qofku uu noqonayo howlgab markaa marka qofku gabo lacag la siiyo loo yaqaan markaa retirement and I even xitaa supervise waxaan kormeerayaa security amniga qaybta amniga I think waxaan u maleynayaa tii markaa it is inay tahay a big job shaqo weyn shaqadan markaa aan ku celiyo halkaas interviews
waraysiyadu can take waxay qaadan karaan a lot of time waqti badan. It's not always easy mar walba ma fududa to find inaad hesho the best person qofka ugu wanaagsan for the job shaqada markaa. So saa awgeed I hire waxaan shaqaalaysiyaa markaa workers shaqaalo, then kadibna I train the new workers shaqaalaha cusubna waan tababaraa markaa. After all that marka intaa aan qabto kadib I want waxaan doonayaa the workers shaqaalaha haddana to stay inay joogaan markaa. I will do waxaan u sameeyaa markaa other things waxyaaba kale to sidoo kale. I will help waxaan ka caawiyaa workers shaqaalaha with their benefits waxyaaba markaa faa'iidooyin u ah like sida insurance waxyaaba markaa yacni caymiska and retirement iyo howlgabka markaa. anigu ifan xitaa supervise waxaan kormeeraa security waa maxay amniga. I think waxaan u malaynayaa it is a big job inay tahay shaqo markaa yacni weyn markaa. marka yacni laga hadlayo company qofku u shaqeeyo company wuxuu bixiyaa wax la yiraahdo salary mushaarka markaa qofku uu qaato yacni companyda macnaha waxay siiyaan marka waxyaaba dheeraada soo shaqaalaha u sii jooga markaa. waxaa ka mid ah qofku hadduu gaboobo kalato in la siiyo lacag oo markaa uu isticmaalo. waxaa ka mid ah insurance caymis. waxaa ka mid ah xitaa sidoo kale waxyaaba la yiraahdo fasax markuu qofku markaa yacni bil markuu soo shaqeeyo inuu bil fasax la siiyo. waxaa ka mid ah yacni bishaan lacag yacni la siiyo oo maaragtay lacagta mushaarka qaan jiray in lamid la siiyo. sidoo kale waxaa ka mid ah in qofka markaa yacni uu guursanayo in la fasaxo lacagta in loo wado. qofku hadduu xanuunsado in markaa yacni lacag la siiyo. a lot of things baa jira markaa oo ah shaqaalaha si loo isteegaro si loo celiyo markaa. qofka shaqaalaha marka hore waxa weeye waa in la helaa best person for the job qofka ku wanaagsan shaqadan markaa oo qaban kara markaa. haddii la helana waa in horta kow la tababaraa. marka la tababar kabacdina waa in markaa shaqada si fiican markuu u qabanayo la ogaado siduu kusii joogi lahaana waa in laga fikiraa oo waxyaaba dheeraada loo qabtaa sida benefitska hadda waxay bixiyaan kuwani insurance iyo retirement. marka kalimaadkan cashirkan ku cusub waxaa ka mid ah interviews wax kale maaha waa waraysi. waxyaabaha kale waxaa ka mid ah yacni on halkan ku cusub benefit waxaa loo yaqaanaa waxyaabaha faa'iidooyinka ah. mushaarka marka lasoo dhaafo waxyaaba dheeraada oo qofka la siinayo sida insurance iyo retirement. supervise waa kormeer. waxaan sameynay supervise waxa weeye waa kormeerid. muxuu kormeeraysaa markaa aad kor ka eegaysaa waa security amnigii waxyaabahaas markaa. okay horaan socono. kabacdi waxaa soo booday selfia waxay tiri well hagaag you are organized waxaad tahay qof markaa yacni nidaamsan. you like waxaad jeceshahay to help inaad caawiso people dadka. you will be good at waad ku wanaagsanaan doontaa at this job shaqadan markaa. you will be good at waad ku wanaagsanaan doontaa at this job shaqadan meetira markaa. selfie maxay leedahay well hagaag you are organized waxaa yidhahdaa qofka markuu yacni waxa marka lasku nidaamiyo waxaa loo yaqaanaa organize. marka waxay leedahay organize baa tahay qof abaabulan oo nidaamsan baa tahay. you are organized waxaa tahay qof nidaamsan. you like waxaad jeceshahay to help inaad caawiso people dadka. you will be good at yacni at this job waad ku wanaagsanaan doontaa maxay shaqadan markaa. Teresana waxay leedahay I hope so anna waxaan rajeynayaa sidaa markaa. marka lesson 1 cashirka koowaad part 4 qaybtii afraad oo conversationka hadaa mar aan dul maro anoo dadejinaya. selfia waxay leedahay what will you do maxaad samayn doontaa at your new job shaqada cusub markaa. Teresana waxay leedahay a lot of things waxyaabaan samaynayaa. I will find waxaan markaa u raadin doonaa ama u heli doonaa new employees shaqaale cusub for the hotelka markaa. is that difficult taas ma adag tahay. interviews can take a lot of time markaa. yacni waxay tiri waraysiyadu waxay qaadan karaan yacni waqti badan. it's not always easy markasta ma fududa to find inaad hesho the best person qofka yacni ku ugu wanaagsan for the job shaqada markaa. shaqada qofkii ugu wanaagsanaa inaad heshaa waa adkaanaysaa markaa markasta waa adag tahay markaa. so saa awgeed I hire waxaan markaa shaqaalaysiinayaa
workers shaqaalo markaa. Then kadibna I train waxaan tababarayaa the new workers shaqaalaha cusub. After all that intaa kadibna I want waxaan doonayaa the workers shaqaalaha markaa to stay inay joogaan. I will do other things too. waxyaabo kale usii qabanayaa sidoo kale I will help waxaan ka caawinayaa workers shaqaalaha with their benefits waxyaabo markaa iyaga faa'iidooyin u ah like sida insurance caymiska and retirement iyo hawlgalka markaa. I even xitaa supervise waxaan markaa kormeerayaa security amniga markaa. I think waxaan u malaynayaa markaa it is inay tahay a big job shaqa adag markaa. It is a big job inay tahay shaqa adag. Salfia waxay tiri iyaduna well hagaag you are organized waxaad tahay qof nidaamsan. You like waxaad jeceshahay to help in caawiso people dadka. You will be good at waad ku wanaagsanaan doontaa this job shaqadan markaa. iyaduna waxay tiri I hope so saasaan rajeynayaa. marka waa mahadsantihiin. عشان halkaas noo ekaanaya dhamaantii ku celceliya insha Allah taala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. What will you do at your new job? A lot of things. I'll find new employees for the hotel. Is that difficult? Interviews can take a lot of time. It's not always easy to find the best person for the job. Next, please. So I hire workers. Then I train the new workers. After all that, I want the workers to stay. I'll do other things too. Okay, I'll help workers with their benefits, like insurance and retirement. it's a must do. I even supervise security, I think. It's a big job. Well, you're organized, you like to help people. You'll be good at this job. I hope so.